ishela laba isku habboon lisanta laba isku hanweyn naftana isku huray isjecel loo guuri aroos habboon hobay 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 loo guuri aroos habboon kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal halkan waa Som Films Production alaaba halkan waxaan soo gelinaa warbixino xiiso badan oo aad idin xiiso geliya kuwaasi oo aan uga hadlayno arrimaha bulshada hadaba muuqaalkeenan maanta waxaan ku eegaynaa jacaylkii yaraanta ku hirgalay jacayl mar hadduu yaraanta ku hirgalana waa mid dhadhan wanaagsan yeesha haddaad moodayso in xiriirka wanaagsan uu dhalasho yahay waad qaldan tahay balse waa xeelad iyo xirfad la barto qof kastana waxa uu awood u leeyahay in uu ku tababarto xeeladaasi cusub ee jacaylka miro dhalay ama xiriirka tayeyntiisii adkeyntiisa qayb weyn oo wanaagsan waxaa ka qaatay in aad dhisto nolol qurux badan oo weliba adiga oo da'yar ah ama ka yar 15 sano taasi oo xididada u sii aasaysa nolol kasta oo aad adiga haru soo martay marka laga reebo in aad xilligan tahay guurdoon awoodda dhanka reer dhisidda iyo muhiimadda uu leeyahay uuna u leeyahay qofka markaasi taagaya aqal loo riyaaqay loona sacabatumay oo dunida oo dhan iyo gaar ahaan familiga ay u sacabatumeen kuna farxeen reer dhisiddaasi waxaa dareemi kara qofkii yaraantiisa jacaylka ku hirgeliyay jacaylka lagu dhiso yaraanta waxa uu qofka dareensiyaa in aad qadarinayso taasi oo ku qasbaysa in isaguna uu xurmayn la mid ah uu kugu jawaabo mid taasi la mid ah iska jir dhaqanka ah in qofka ka sareeya aad ka fororsato oo waa in aad naftaada bartaa in aad indho xurmaynayo ku eegto qofka aad nolosha la wadaagi doonto iyo midka adiga ku dhow markasta xitaa haddii uu yahay maamulahaaga shaqada ama waalidkaaga waayo indhuhu waa halka keliya ee laga dheehan karo run in aad sheegayso iyo dareenka diiran ee laabtaadu ay qofka u hayso xilliyada ay jiraan aroosyada iyo weliba meherada ay dhacayaan markaasi oo qalbigaaga waxa ka guuxaya ay yihiin waxyaabo aad u badan awoodda yaabka leh ee ah in reer la dhiso waxa ay gaarsiisan tahay in ay isku xidho dareenka iyo xiisaha qofka ee muddada dheer ah soo wada socoteen soona wada marteen duruufo iyo marxalado kala duwan reerka cusub ee la dhiso waxa uu abuuraa in ay kiciso ama ay baraarujiso unugyada nafeed ee maskaxda qofka uu la aqalgalay iyo dhammaanba dadka ku faraxsan qoyskan cusub ee ku soo biiray nolosha dadka jecel in ay reer dhisaan haddaba waxaan uga soconnaa warbixintan jacaylkii yaraanta ku hirgalay ee ka dhacay dalkaasi Ciraaq waxaa ka dhacday arrin aad u soo jiidatay bulshada ku dhaqan dalkaasi iyo weliba Soomaalida oo baraha bulshada aad loogu hadalhayay wiil yar oo 2010 dhashay 12 sano jira ayaa gabar 12 sano jirta guursaday kadib markii ay isku qaadeen jacayl aan xad lahayn oo aad u weynaa oo noloshooda ay soo wada wadeen ilaa yaraantoodii wiilka yar ayaa waxa uu sheegay in noloshiisa uu ku faraxsan yahay isagoo oo sheegay in uusan guurka khasaare ahayn taasoo fariin u ah dad badan oo guurka u maleynayay inuu khasaare yahay halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in guurku dhadhan leeyahay marka weynaanta lagu guursado balse maahan taasi oo waa nolol qurux badan oo noloshaada wax badan ka bedelaysa wiilkaas hooyadii ayaa waxay sheegtay in ay jeceshahay in ay mar indhaheeda ku aragto ilmihiisa uu dhalay taasna ay hamuun weyn u qabto hooyadiis oo aad ugu faraxday reerkaasi cusub ee ku soo biiray ehelkooda jacaylkaasi yaraanta ku hirgalay ayaa waxa uu farxad geliyay dhammaan ehelkii ka soo qayb galay arooskaasi iyo dhammaan quluubta dadkii halkaasi ka soo qayb galay jacaylkii yaraanta ku hirgalay ayaana loo bixiyay dalka Ciraaq waa arrin aad u soo jiidasho leh marka aad adiga oo qof jecel waliba lagu dhaho waad aroosaysaa bari bal maxaa dareemaysa adiga laftigaaga oo warbixintan daawanaya qaybta hoose ee commentiga noogu reeb labada qof ee isqaba ama wada nool midkood in uu qalad ka dhaca waa laga maarmaan balse in ay qalad ka dhacay ay si degan u xaliyaan waxa uu horseedayaa in ay nolol farxad leh ay ku noolaadaan mar kasta iyo xilli kasta si noloshooda ay u noqoto mid heer sare dhowrkii sane ugu dambeeyay waxa aad u badnaa qoysas wada noolaa oo aan arrimaha qoyskooda ka wada hadli karin xitaa aan meel isla dhigi karin khilaafka ka jira dhexdooda awgood iyo qaar kale oo ku wada jooga oo kaliya caruurta in ay wada korsadaan oo kali ah kuwaasi oo aan kalsooni isku qabin haddaba isfahan la'aanta noocaasi ee reerka ka dhex abuurta
qallaaso badan marka ay sii weynaato waxay horseedaysaa qoyskii dhisnaa in ay burburaan oo la kala tago aysan halkaasiba jacayl u oolin wiilkan yar ee 2010 dhashay waxa uu indhaha u furay wiilal badan oo doonayay in ay weynaanta ay ku guursadaan kuwa hadda xiriirku u socdo oo ku dhiiran doona in ay guursadaan balse waa arrin aad iyo aad u soo jiidatay Soomaalida iyo waliba dadka ku dhaqan Ciraaq kadib markii arooskaasi u dhacay si la yaab leh waxaana la sheegay in arooskaasi ay ku baxday lacag aad u badan kadib farxadii laga dareemay lamaanahaasi nolosha sida wanaagsan ku wadaagay markastoo aad lamaan yeelato ama aad aroosayso ama arooskaagu dhacayo way ka farxad badan tahay maalmaha kale way kaaga duwan tahay maalmaha kale waa habeen ku qurux badan waa habeenkii kuugu farxadda badnaa waa habeen kale oo ehelkaaga iyo dhammaan asxaabtaada ay garbahaaga taagan yihiin adduunyadu way ordaysaa hadiiba ciyaalkii 2010 ay guursanayaan dadka doobnimada ku daahay ayayna farintani waxay u tahay digniin hal guursado guud ahaan daawadayaal intaas ayaan jeclaynaa ku soo gabagabayno warbixintii aan uga hadlaynay jacaylkii yaraanta ku hirgalay tan iyo kulanti dambe intaynu warbixino noocan oo kale aynu dib ugu kulmi doono subscribe saar siina share gare si waxyaabahan halkan aan soo gelino ay ku soo gaaraan adna waad ku maasantahay daawashada iyo la socodka waxyaabahan halkan aan mar walba aan soo gelino si aan idinka farxino